kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka ila tali qaybtiisa saddexaad waxaana si toos ah idinkugu daadahayn doona maanta abwaan xarago ku soo dhawaada barnaamijka ila tali oo maanta xiisa gaar ah leh وهاجاج isku soo noqod wanaagsan waxa dhambaal noo soo diray gabar Soomaaliyeed oo ku nool wadanka Ingiriiska waxayna u dhigantahay dhambaalkan sida tan magacaygu waa Samira Abdi Yusuf waxaan ku noolahay bay tiri wadankaas qurbaha aadka u fog waxaan jeclaaday wiil Soomaaliyeed oo ku nool isla caasimada wadankeena Soomaaliya ee Muqdisho wiilkaasi wuxuu ka tirsan yahay bay leedahay ciidanka xooga dalka Soomaaliya oo waaba askari jooga furimaha dagaalka waxaan jeclaaday bay tiri 2016 waxaan isguursanay bay tiri 2017 hadaba wiilkaasi wuxuu igu noqday bay tiri nin xunbu igu noqday oo inta badan iigu hanjaba qoriga uu sito marka qaarna uu ii soo diro codad aan ka naxo oo aan isleeyahayba waaba qof cadow ah ee maba ahanba qof jacayl kula jilaya waxa saacibtii ugu dambeysay ay dhacday markii uu walaalkay shan xabba ku riday ilaahayna uu ka badbaadiyay يا سلام سلامات من كل آفات وقصدي أغياب كبنيد انت أنت بنا برنامج كيلا تلي ويل سيديس لدعي شن حبضات إلهينا وكبد بادي هذا بقى أن جودها أصي قلنا دنبالك قبل عي نص صدرتي وحي تريجرتي بالله فريستي أو وحا لقى قاضي مقدو ويلكي أنا جا إقبي أو أها أسكري كتر سنة عيدا كحوق دلك الصوماليات أو مدة 6 سنة عن استعلان مركي دبنا عن إسهانني هذا بقى wiilkii ayaan ku wargeliyay bay leedahay in aan u imaan doono una noo diyaariyo aqal ama chief si aan ugu aqal galno caasimada Soomaaliya anigoo ku dhiirigelinaya shaqada culus oo u haya qaranka Soomaaliya hadaba maxaa xigay inta markii ay الله إلهي محا حيقي كلا أرض اسبورسي عي أفلقادو هنشباد يوح آنان كمالي سنين أيان كلا كل ماي باي لادة هاي قباداني ويلكي أسكري ها أيان شعلادي وحاونا إيوه هنشبي يهدي عن مقدشة إمادو أيضون udacwoon on geyn wadanka Ingiriiska in uu shan xabba ku dhifan doono qayb kamid ah waalidiintii haduu indhaha saaran uu shan xabba ku dhifan doono markii horena uu sigay walaalkeed ya salaam sallimna min albala ayada dhashii ka jeclaatay waxay leedahay dhibaatadaas ayaa igaartay maadaama jacaylkaygii iyo nasiibkaygii uu ku soo biyo shubtay dhashiiko qori caaradiis iyo fuuq iyo wax aan jacaylka laazim iyo laa'iq midna aanu ahayn waxaan ka codsanayaa bahda abwaan xaraga ee ila tali in ay barnaamijkan igala taliso si aan ka yeelo ninkaasi oo aan naftayda iyo waalidiintay iyo maalkayga intaba aan uga baqayo وهاجاج آد بي أمات سنتاي قبضا ستالada iyo tusaalaha na soo weydiisay bahda ila tali iyo barnaamijka abwaan xarago waxaana ka codsanayaa gabadha Soomaaliyeed in ay wadankeeda iska joogto maadaama ay talana soo weydiisay waxaana leenahay ha soo raasan dhashiike iyo qori fuuqiisa adigoo ku nool wadan aad u qabow oo heli kara wiil Soomaaliyeed oo aan qori iyo dhashiike midaba wadan awal baad holac jeclaatay jacayl iyo dhashiikana isku meel ma galaan aad bay u maasan tahay wixii tala iyo tusaalaana idinka ayaa commentiga ugu reebi doona waa bahda abwaan xarago oo idin leh ismaqal dambe iyo is aragti dambe oo xiisa leh intaan barnaamij midkan la mid aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa assalaamu calaykum